taxaniheennii uu halkan inoogu warramayey howlgalladii muhiimka ah ee halgankii dalka somalilan lagu xoreeyey muddadii uu socday waxaanaynu qaybahan dambe si gaargaara ugu soo qaadanaynay howlgallada ama obarashinada goonigoonnida ahaa ee lagu wiiqaayey taliskaasi siyaad barre iyo ciidamadiisii wakhtigaasi sultaan maxamuud axmed xasan maxamuud wadaad ayaa marti inoogu ahaa halkiina inooga sii ambaqaadi doona suldaan adigoo mar kale kusoo dhawaanaya barnaamijka sidaan maqlay howlgallada muhiimka ah ee intii aan waddanka lasoo wadagelin 88kii ka horreeyey dhacay ee aad qaybta ka ahayd waxaa ka mid ahaa howlgal ka dhacay minduleedka hargeysa ilaa xuduudda inta udhexaysa idinkoo tiro koobana howlgalkaasi jabdurwaa la baxay goormuu dhacay siduuse u dhacay maxaad si kala kulanteen howlgalkaasi wuxuu dhacay awalkii 86 awalkiisii waxaanu wada ka soo baxnay meesha la yidhaahdo dhooba guduud waxaanu wadanay gaari jaadlaa oo nin la yidhaha ina cigaal uu lahaa iyo gaari qori seekahow inoo saaran yahay labadan laakurusal baanu wadanay imsaaxidan iyaase idin watay waxaanu soo anbabixiyey obreshonka noo soo diyaariyey mujaahid maxamed xaaji muuse aragwaafe ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye obreshonka waxaa watay oo uu yidhi kaxayso ciidanka cabdi maxamed feer ilaahay ha naxariistee oo cabdi feer loo soo gaabin jiray waxaanu ka soo anbabaxnay meesha la yidhaahdo dhooba guduud waxa aanu maalintii yar hadhsanay meesha la yidhaahdo karooska maqaaxidii caasha ciida gelay waanu soo soconnay waanu soo dhaafnay casarkii baanu soo carownay xadkaanu ka soo talownay qardajeex baan iskaga soo socnay halkaa u dhaxaysa 29 iyo meesha la yidhaahdo kaam ogaa dhexdooda ayaanu ka soo talownay xadka toos baan iskaga soo soconay marka maalin baa soo dhaqaaqdeen mise habeenimo waxaan soo dhaqaaqnay casar gaaban casarkii gaabnaa ayaanu ka soo talownay xuduudda waxaanu balli kaliil iyo balli shire iyo waxaanu ka maray galbeed waan soo soconay meesha la yidhaahdo subaxii annagoo maranaa meesha la yidhaahdo qorijabley qorjolada hargeysa baan ka fogeyn aan hargeysaba ka fogeyn ayaa annaga obreshonka iyagu waxa weeye laamida aw barxad leh ayaanu ku jahaysano oo obreshonka iyagu yahay halkaas subaxii marka aanu marano ayaa waxaanu kula kulannay qorijabley gaari xaajiyada oo hilagasa oo ay wataan niman odayaal gaarigan waanu isag taagan annagoo isla dhaafaba magaalada dabadeedna in yaro garashbayo la socday gaariga ayaa yidhi waan ciidankii wuxuu na moodayaa dee faqashtii waryaareen miyadan garanin gaariga odayaashii wafdiga gogol xaadhka u ahaa ayaa gaariga watee deedna breega baanu sii qabano waanu ka soo daadanay odayaashu maxay ahaayeen markaas waxa wata saayid xaaji aadan iyo gaas iyo odayaashii wafdiga gogol xaadhka wafdigoona maxaad ahayd wafdigu muxuu ahaa dee wafdigii morgan iyo waa halkan loogu qalqalaayo xoolaha iyo way soo socdaan geela iyo xoolaha halkan loogu qalqalaya xaflad ballaaran baaba ka jirta xaflad ballaaran baaba ka jirta oo faqash lagu casuumayo taliyihii qaybta 16aad ee morgan waan istaagnay odayaashii baa tagno waan soo kaxayna gaarigii baan soo saaray odayaashii iyo darawalkii iyo kii yaraa gaarigii anigaaba soo kaxeeyey shirka waxaa ii soo galay xasan aar allahu naxariiste iyo baash garaabo markii aanu soo soconnay bal cilmiga ilaahay de annagu niman dee ka yimid qaaxoo record iyo hees iyo waktiga igu dambeysay may jirina waxaanu aragnay bahalku inuu record leeyahay
cajalada badan oo khaanada ugu jiray oo ilaa dhowr iyo 10 ahaa ay ma khaanadii faruux ma ka soo saaray cajalad mid kamid ah rikoorkii ma saa u geliyay cajalada waxa ku jira waaba maxamed mooga liibaan ilaahay naxariistii jannada ka waraabiye waxaaba weeye aba hawsha wadamo hadlaya wadankaygi hooyana makaanu halgamayay hoogaydu taala heestaas aba ugu soo horeysa annagoo wada jiriracaysa maalmaalkii soo kaxaysan waanu soo soconay meesha la yidhaha Jabruwa marka aanu marano ayaa koonaheeda bari ayaanu ka soo qarda jeexan waa tuulaha koonaheeda tuulaha waxa taagan laba gaari beebeeya iyo gaari elema gaariga elemka ay fantari badan busidaa waxa weeye waftiga ayay waa ciidankii tooneed annagu ma arkano dirgadahay dhex taagan yihiin annagu koonahaanu ka qarda jeexnay xagga hore maanu kaga dhacnay wadada yare duudka ka soo dhacda carmada iyo meesha ku soo dhacda ayaan anagu doonayaan mar operationka iyagii hore ku socotaan ayaabaan iskaga soconaa dadna markaanu taagii yaraa saa u qabsanay duudka yare cadaadda leh ayaa waxa naga hor yimid gaari isku rogaa gaarigiiba aan joojinay waxaaba ka soo degay laba askari laba qori bay sitaan shirkay saaran yihiin markaasaan nidhi abal soo dega dabeedna nin ka mida oo allahu naxariista u dhintay indhabuur la odhan jiray ayaa markaasuu taysarayska soo dhan suuri ku digtoonaada isbatoore saddexle hebel indhabuur idinkiiba digtoonida geliyay annagiibuna leeyahay ku digtoonaada taysaraydu waanu ka dhufanay qoryihiina qansanadahaanu ka jaray labadii qansanadood labadooda qori san waan digtoonaanay iska soo socda dabeedna maxaa war leedihiin annagu markaa waxa dariiskan aanu sidana waa ka iyagii qabalaygii midooba markaa haddana dadku inay nasaqan yihiin oo weliba dee siigada na saaran ilaa xalay oo dhan baanu guuro ahayne aanad malaynahayn siigada weliba iyo baawta shacabka dootan fahmi maayaan iyo dee gaariga hurta go-an iyo gaarigan kale dee jaadlaha ee jambiyada jawaanada kaga xidhan yihiin dabeedna aragna iska fadhiisto xaajiyadii odayaashii saaraa ayaanu u geynay intii saarayd iska rogadana waxaa leedahay waftigu waa kan imika moorgana daba socdaa idinka ka jawaabi doona waxaa samaynaysan wixii xilka lahaaba wadaane waa sax baan nidhi annaga ka jawaabay halkaas mee moorgan waa kan imikana daba socda waay annaga markaas operationkayga isbedelay ilaa gaarigii ugu weynaa meesha maraya moorgan baaba maraya waxaanu damacnay inaanu ku sugno halkaa waxaa nooga soo horreeyey tuulihii Jabruwa aan soo dhaafnay labadii gaari ee taagnaa mid beebeega ahaa ayaa beebeega soo dhaqaaqa waxay laba gaari oo siigeeriya halkan naga dhaafay beebeega waa soo dhaqaaqo Jabruwa ilaa haarta yaraan saarannahayna waa ban halkaasaan ka aragnay beebeega soo siigeeriya bankii soo ordaya beebeega sidii soo socday ayaa dushay sida wada saaran yihiin sida koronkorta dabeedna waan u kala baxnay waxaanu sidanaa hal qori oo sebena halka qori ee sebenka ah waxaa noo sida nin mujaahid ahaa oo imika nool oo imika halkan dowladda hoose jooga oo la idhaha Axmed Suudi Cawaale naanaystiisana Axmed Galdugob 5 xabadood oo xabadood iyo qori sebena ayaanu sidanaa wax seben kale ma sidano BKM ma sidano adu waa kayada mooyaane laakiin inta qorisay ka uya ayaanu wadanaa Allahu naxariisto Ismaaciil Yare Sahra Axmed Jaajir oo loo jiro gacan fudud uu noo ridaayo qoriga oo aad aan ugu kalsoonayn markuu qoriga ridaayo isagu ninkaas marka imika intayadii waxa gaariga seekooga waxa wada Cali Abanash علي عبد الله قنول إمك صدق هذا صانو كجنا والله إن أوبريشن كا أنت يدي كشرتي صدق هي طبعا كاحد وأنا جي علي أبانش يا أحمد قلدوق بصدق هذا صانو كجنا والله إن تبدأ
beebeegii ayaan ku niri galdogobow geedkaa cadaadda waddada barbarkeeda aagal beebeegu waa kaas uu kugu soo jeedaa xabadda sabanka ah haddaad la weydo adaan kugu dhufanana annaga ku tooganana adiga la sug markuu taayarka halkaa soo saaro hobaska un kaga dhufo waaya buuri afkiisu bahalka markuu kugu soo jeeda haddaad ka horgeysana xabaddu way ka seeblataa markaa markuu kugu soo jeedo hobaska meelaan ahayn oo aad ka fadhiisin kartaa ma jirto axmed wuu iskala sugay bahalkiioo markuu la gudboon u jiro 4 tallaabo ayuu xabaddii sabankaheed hobaska kaga dhuftay firirkii ka soo duulay ayaa axmed galdogob ku dhaawacma ya birtii iswadatay iyo hobaskii iyo sabankii firidhadii ka soo duulay halkiiba ku gubtay isna halkiiba ku fadhiistay oo intii dusha ka saaraydna sheeka ogiya dee akayadii baan marin oon ka daadin annagoo beebeega iska haysana ayaa waxaa ka soo cararay haddana magaaladii gaari elama oo 40 ay saaran yihiin waanu aragnaayo bankii buse soo dhigayoo halkaa markay nagu soo dhow yihiin bay ka soo daateen waa niman yaacaya dee nimankaa xuduuddaan isbaranayoo aada nooga baqan jiray laakiin nimankan toon iyo dee hargeysa agagaarkeeda ha ma ahayn dee niman aanu is aragnay oo dee waxba iskaga waxaan kuli niman siday noola dagaalameen aada yaabaso ayay noqdeen nimankaasi bankii bay soo yaaceen oo annagoo ku ridan oo ay daadanayaan bay naga joogsanba waayeen kaynta yare cadaadda ahayn ku jiro ayay ku soo yaacayaan dayna iyaguna gabad ka dhigtaan nimankii markiiba waxaa naga dhaawaceen mujaahid la odhan jiray oo meel koonaa ku dhaawacmay deedna waxaa muuse biid baa la odhan jiray ilaa naxariista jannaha ka waraabiye muuse ismaaciil meel koonana uu ku dhaawacmay anigu waan arkayay deedna cabdifeer baan ku war cabdifeer dagaalku in badan imika wuxuu dagaalka intaynu guja saacad iyo badha ayuu socday dagaalkani toonina waa tan agteena halkana waxaa naga saaran airportkii hargeysa iyo waftigii morgan halkana waxaa naga saaran badar wanaag halkan barina qoton oo uu joogo ina bogmado ciidankii cadaadley ayaa naga saaran waxweeye dhan walba gurmadka wuu naga soo gaadhayaa saacadda marka wakaa halkaan muuse ku dhaawacmay galdogobna waa dhaawac ina mar aan muuse halkaa ka soo qaadno ciidan ka saara meesha waayo waan isla qaadanay aniga cabdifeer deedna waan israacnay muuse ay boodada kaga dhacdo koonaha markuu dhacay aan arkay ayaan u tagno waanu u shisheeyaa deedna muuseaan soo qaadno allah naxariisteen baashi garaabe la odhan jiraya isna qorigii muuse soo qaado anigu qaarkaa damban siday cabdifeerna qaarkaas hore sida markaan kusoo dhawaana gaarigii ayuun baan xiiqa markaan xiiqay un baan idhi arbal waan xiiqe baashi garaabo abaliga qabayn waan xiiqee raggana qaarka dambaa culus moogtay deedna wayga qabtay meeshuna dalcad bay hayd aanu kala soo baxanay deedna wayga qabto waan istaago qorigiisii buu yidhi intaan qoriga garabka gashanayay ayay shiishka iga bogteenoo inta misigtaa igaga soo dhacday ay taa kale iga baxday labadaa jiriguu ma nagu ku dhufto gow markaas waan isiri kaco intaa hore mooyaane qaarka dambeba iguma yaallo dabeedna markaasaan qorigii intaan dhabarka u wareejistay ayaan gurguurtay yaro gurguurtay maxamuud waad kale soo kaco deedna saasun bayna fireego asaan ku yidhi waar ariqaada way igu dhacdee way igu dhacday ariqaad haayo deedna isagii baashaad isagiina gaarigii bay saareen maogta muuse deedna anigiina gaarigii jaadla ahayn wadna shirkiisa ayay saareen deedna xabadda ku socotaa markaa xabadda way nagu socotaa iyadoo kulul weliba ciidankana waa ciidan gaar ahoo morgan loogu talagalay inay difaac hore usii noqdaan tababaran kamandos bay ahayn deedna waxaan ku yidhi waryaa soo saar ciidanka soo saaro saddex usoo baxa ayuu yidhi allah u naxariistay nin gaaxnugu la odhan jiray mujaahid ahaa oo habeenkii dambe dhiman doona oo u dambeeyey oo
arbedhe bisto ku dabxidayay markuu silisa uu soo jeesto sida gaarigii fuul ay isna dhabarka kaga soo dhacdo halka caloosha ay ka soo baxdo isna gaarigii buu saaro deedna buurta yar baan soo u raacna baawurtu markaas siiga ma laha halkii waxaanu kaga tagnay nimankii iska rugada saareen ka rugnay xaajiyadii odayaashii aan soo qaadnay intiiba halkii ayaanu kaga dhaqaaqay inta dagaalku socdana beerka dhulku yeelma yahay kaynta agteedana beerka dhigo war ku wada dejinay gawadhida halkaas beerka ku hayeen qoriyii la ka wad ka qaadeen labadii askari waanu ka qaaday dhaqaaqii aanu dhaqaaqnay intuu teer soo raacnay ayaa nimankii waxay weli ku soo ridayaan odayaashii iyo dabakii aanu ka tagnay dadna anagu hore markaan u yar soconay ayaabaanu aragnay ina bogmado qoton ka soo gumado 3 gaari ah ayaaba wadada soo haya wadadii jabdurwa waan iska taagnay uuna dhaafay waan daba goynay halka markaan daba goynay markaan iska yara taagnay wadada ayaan ku hor ina xira markaas aad la xiray aniga iyo gaaxnuug iyo musabiid iyo galdugo marka dhakhtarada lama socdo ama kali caafimaad ma wadataan ma wadana laakiin de waan sidana bogoskayagii dawada ahaa iyo baandhaysyadii iyo waxa kidkayga waan sidana tan anigu de shirkaan fadhiyaa mana xidhmaayo oo intani ma xidhanto wax yaraa lagu xidhaaba sarumay u soo yaacda laakiin labadii nin kale kii boodada markiiba waa la xidhay galdugubna halkan iyo inta firidadu kaga dhaceena waa la xidhay gaaxnugna calooshii waa la xidhay laakiin dee xabadu calooshay soo dhex marto dhiiggii baa ku socda waan iska soo soconay dhabarkii yaraa baan ka qardajeexnay wadadii markaan ina bogmudana dhaafay ayaanu toos u soconay waan iska qardajeexnay bari baanu ka yara maray qori jabley sidaan u qardajeexnay tuulaha yara waran cadda la yidhaahdo ayaanu ku soo baxnay waanu soconay aan waado cabdi fiiru xadka oo dhan waa la xidhay marka waa inaynu qowl buulalle magaalada barkadaha axmarna ciidanku ay degan yihiin halkaasun baa bannaan maanta waa inaynu halka ka talownaa wakayidhi waa saaxibartaas inu ka talaabana qardajeex iyo maan baan ku soconnaa labada gaari siiga male doo waxaan ku yidhi laba laan kuruusalo wanaagsan jabacda qoriga ay jebinayaan baad maqlaysaa buuxoodana maqli maysid siigana ma laha deedna sidaan u soconay ayaa marka ay adigu tahay ilaa 3 meelaha ayaanu qowl buula leh xerada agteeda kii geedka saara ee gaarka ah ayaanu ku soo hagaagnay xeraduna waa tan deedna geedkii baan sidaa u hoos maray sidaa markuu noo arkay ayaa qorigii oo rakada sare u saaran ay geedkiis ka soo daayay maas u soo dhacay dhulka waan iska hoos maray xabad kumana ridin isagaan waan arknaa inaanu qori xajada qoriga la soo dego waan ku dhufan lahayn waan iska dhaafnay xadkii baan ka taloon tuulaha dhinaysi waan iska soconay halkii nasiib sidii aanu sheegnay way banaanayd inta kale se gacmaha haysteen ilaa qolbulayna ilaa ina guuxa ilaa qolbulay ilaa laba sagaala ilaahay ku ilhaamiyay laakiin waad miirkaagu joogaa waad garanaysaa laakiin waxaan dareemayaa in kursiga aan ku fadhiyo dhiigaygii oo dhan uu socdo halkan iga baxday baana weynayd marka xinjirtu samaysato ba kirkidha gaariga ay xinjirtu dhacaysaa markaas dhiig furmaya deedna markaan talooniga hadiyo jaraale markaad cadowga ka dhex baxday aad dhulkii nefiska ha tagto xarxartu waa kugu soo baxaysaa nafta kugu soo yar noqoto deedna markaasaan ku yidhi wariyaa ina firwar ilaa 2 kilomitir baan markaa dhaafnay xadkii markaasaan ku yidhi warwan dhiig baxaya kursigoo dhan dhiiggii baa ku fadhiyaaya waadeesha xidha markaasuu joojiyey gaarigii way dejiyeen oo halkan ay dhigeen beerka ii jifiyeen beerka markay ii jifiyeen iyagoo sidaa ii xidhaya idin daba socotaa ma jirtaa markaa mise way idinka hadheen markay sidaa ii xidhayaan baaban intan ilaa ka aragnay mise beebeeba halkaas kasoo siigeynaya raadkaygii haya deedna sidaasunba ii qaadeen saasuma iigu tureen gaarigii deedna waan soconnay aniga horta markii laygu tuuray gaariga ayaa miyir igu dambeysay oo ilaa baara 3 meelahaas ahayd
soo Dhoobagudud baan tagnay Dhoobagudud baa la dhigay anigu xamoogi afartii habeenimo ayuun baan indhaa kala qaaday iyadoo xabad glucose igu xiran tahay meel yaro nin reer Dhoobagudud uu lahaayo cariisha ayuuna siiyo waad noo ah oo dhaawac noo yaala iyadoo glucose xabadina igu dhamaatay xabadina igu soo ayuunba xabadii igu xidhnayd unbaa i damaqday markaas maan ku odhan Allah naxariistanin doctor ahaa doctor Yusuf loo oran jiro Hollandiisa oo Hollandka yimid halka Hollandka ka soo biiray 84 ayaa dhakhtar noo ah oo jooga marka oo aan aad u saaxiib ahayn deedna markaas maan doctor Yusuf waxaan waaliga fur doctor Yusuf markaas uu brother ma ka furmaayo waa glucose adeer waxaan sheegayaa in gaarigii ciid baan soo saarayo halkan uu taagan yahay adiga Gaxnuug baana ugu dhaawacay marka inaan heroin qaado ayaan doonayaa deedna glucose masaas ka dhufto markaas ma ku doctor Yusuf ilaahay ma taqaana aniga halka ma hayga baxdo ama aan ku noolaade lay qaadi maayo hadad Gaxnuug qaado soo qaad aniga laakiin la ima qaadi karo markii aan hadana koomad u kala waxaan hadana koomadii ka baxay casarkii markay tahay ayuun baan tan indhaa kala qaaday iyadoo 3 dumar iyo dhakhtar loo oran jiray Maxamed Gaxnuug ay dul joogaan deedna saas maanago dumarka niman mujaahidiin qabo saan ku yiri dumarka ka xeeyo guryaha geeyay in waan ladana walaalo horto iska tago deedna in Gaxnuug baa glucose waxba igu xirano سوريا وحات إن إلا حلوات سلام قنيدة إنك لوكاس تساق ودا ماتو ويبان له عادي بان سكسو ميرستو لوكاس تبان سكتيستو مخربي أيات دكتور يوسف قاريجو كقاضي جاحنو قطع يسوي تاج ونوصل قالوا راح يكسر نقطة بقياستي المشاهد كيو قاضي Gaxnuug markuu maraayo kaamreerid leh laakiin ka shabeelle ay nafta ka dhacdo dadna magaalada waa la aastay halkii uu ku aaso markuu soo aasay uu soo noqdo gaariga laftiisa buu soo noqdo markaas wallahi Maxamuud wallahi wali baa tahay waanu yara afadka ilaahay on xariistay waa sidii Gaxnuug shabeelland markan marayo ay nafta ka dhacdo halkaasaan ku soo aaso niman wanaagsan oo reer Shabeellaaba markiiba ila aasay hay san ku halkaas uma ku dhiman lahaa taad waayo dhiiga furmaayo baan ku yiri isagana imika dhiigaas uma furmay markii aad qaaday marka halkaas hawlgalkaas ku dhamaaday